Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabad walaalayaal, waxaan halkii kasii ambaqaadi doonaa ilaahay haddoo idmaa markaasi buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words oo ka koobnaa 6 buug. Buuggiisii koowaad ayaan ku guda jirnaa, cutubkiisii labaad ayaan maanta bilaabeynaa ilaahay haddoo idmaa. Cutubkiisa labaad wuxuu ka bilaabanayaa beejka 14aad. beejka 14aad ayuu cutubkiisii markaas labaad ka bilaabanaya. Ereyga ugu horeeya maanta ee aan akhri doonaa waxa uu yahay markaasi adventure. Adventure waa raaxo. An adventure raaxadu is a fun, waa waqti fiican or ama exciting thing, mise wax aad ku raaxaysato that you do aad samaysaa. Intaas wuxuu ahaa definition, qeexid ayuu ahaa. Tusaale markana laga siinayo riding in a rough water, fuulista markaasi biyo markaasi aan sineyn oo silib ah, was an adventure, waa raaxo ayaa layiri. Ereyga xiga wuxuu noqon doonaa approach, ku dhawaasho. Approach waa ku dhawaasho. Definition qeexidiisa wuxuu noqon doonaa ereygaasi to approach, inaad ku dhawaataa something, wax inaad ku dhawaataa means waxaa lala jeedaa to move close, inaad ku dhawaasato it, iyadu sheygaas waa inaad ku dhawaataa. Tusaale, the boy wiilka approached wuxuu ku dhawaaday his school, dugsigiisa ayuu ku dhawaaday. Ereyga xiga wuxuu noqon doonaa markaasi carefully, taxadar badan. Carefully, taxadar badan means waxaa lala jeedaa with a great attention, markaasi dareen markaasi weyn, special qaasatan to the tile, aad markaasi ku faahfaahinayso ama safety aad ku badbaadayso. The baby canuga carefully wuxuu si taxadar badan climbed down uga soo booday the stairs, jaranjarada. Chemicals, ereygii noogu xigaa wuxuu yahay chemicals. Ereygaasi macnihiisa af Soomaali chemical oo kaliya ayaa la yiraahdaa. Haddaa macno kale u hayso ardayo adiga waaye. Chemical waxaa la leeyahay is something, waa wax dadkaasoo scientists, cilmi baarayaashu use ay isticmaalaan in chemistry, ay u isticmaalaan chemistry ahaan. The scientists, cilmi baaruhu, maqsad wuxuu isku qasay the chemicals, waxyaabahii chemical ay isku qasay. Create waa abuuris. Create waa abuuris. To create, inaad abuurtaa means waxaa lala jeeda to make, inaad samaysaan something, wax niyo cusub. She created, waxay abuurtay an igloo. Igloo waxaa la yiraahdaa markaasi waa guryo markaasi laga sameeyo barafka markuu daa. Barafka markuu daa oo snowga la yiraahdo, marar ayaa wuxuu sameynayaa markaasi inuu isqa qabsan karo. Waqtigaas uu isqa qabsan karo waxaa laga sameeyaa guryo markaasi u eg sida mundulka kale. Mundulkaas u eg ayaa laga sameeyaa. Marka waxaa la yiri she created an igloo from blocks of snow. Waxay ka samaysay markaasi barafkii soo da'ay, waxay ka samaysay guriga la yiraahdo igloo ayay ka samaysay. Evil waa shaydaan. Evil, shaydaanku waxaa la yiri markaasi describes, wuxuu sheegayaa something, wax or ama someone, qof ayuu ka hadlayaa bad, xun or ama cruel, axmaq ah, not good, aan wanaagsanayn. The evil, shaydaanka, figure sawirkiisa scared as all, dhammaanteen wuuna cabsi geliyay. Experiment waa tijaabo. An experiment, tijaabada is a test, waa tijaabo that you do aad samaysaa to see, saad u aragto what will happen, waxa dhici doona markaasi. The students, ardayda, did an experiment, waxay sameeyeen tijaabo in science, cilmiga sayniska ay ku sameeyeen class, in a science class, galaaska sayniska ay ku sameeyeen. Kill waa dilid. To kill, inaad dishaa someone, qof, or something, mise shay inaad dishaa is to make, waa inaad ka dhigtaa them, shaygaasi mise waxaasi die, inay dhintaan. I killed, waxaan dilay the fly, waxaan dilay markaasi tixsi ayaan dilay, with waxaan ku dilay a fly sweater ayaan ku dilay markaasi. Waa markaasi shabaqa lagu dilo kaneecada ee dabka leh, markaasi dabka korontada leh. Si lamid ah markaasi laboratory, waxa waaye lab-ka waaye. Laboratory waa naqaanaa, waa shayga wax lagu baaro waaye. Laboratory waxaa la yiri is a room, waa qol, where halkaasoo scientists, cilmi baarayaashu works ay ku shaqeeyaan. My mother, hooyadeed, works waxay ka shaqeysaa in a laboratory ay ku shaqeysaa. Laugh waa qosol.
laugh waxaa la yidhi is a sound waa jabaq mise cod made la sameeyo when waxaana la sameeyaa someone qofi is happy uu faraxsan yahay or ama funny thing wax markaasi qosol leh accuracy ay dhacaan. Tusaale, the sound of their laugh codkooda qosolka village ayaa ka buuxsamay the room qolka ayuu buuxiyey. Pageka markaasi 15 haddaan u gudubno ereyga ugu horeeya waa loud. Loud waa sabaxanka kore ayaa loud la yiraahdaa. If haddii a sound codi is loud oo sabaxankeeda oo kor u qaadma is strong, it is strong waa mid awood leh and a very easy mise markaasi aad u fudud to hear in la maqla. Tusaale waxaa la yidhi the man's voice codka ninku was wuxuu ahaa so loud mid aad u sareeya oo kor u qaadsan that codkaasoo we all could hear him aan ku maqli karin isagu. Nervous waa xanaaq. When a person markii qof is nervous uu xanaaqsan yahay they feel something bad waxay maleeyaan shay xune will happen inuu dhici doono. The boy wiilka became wuxuu noqday nervous mid xanaaqsan when he heard markuu maqlay the news akhbaarta. Noise waa qayle. A noise qaylada is an unpleasant sound waa cod aan markaasi ku farxad gelinayn. The crying baby oohinta canuga made waxay ka dhigtay loud noise qayle markaasi kore ayay samaysay. Project waa mashruuc ama shaqo. Project waxaa leeyahay markaasi is a type waa nooc of work ee shaqada ka mid ah taasoo you do aad ka qabataa for schoolka aad ka qabta or a job waa shaqo caadi ah. His afternoon work shaqadiisa galabnimo of project ee ah markaasi mashruuc wuxuu ahaa to paint inuu rijiyo the room qolka green cagaarna uu ku rijiyo. Scare waa cabsi. To scare inaad cabsataa someone qof aad ka cabsataa is to make them waa inaad ka dhigtaa shaygaas feel inuu dareemo afraid baqid. My uncle adeerkayga was scared wuxuu ka cabsay by what he saw waxa uu arkay in the room oo qolka ku arkay. Secret waa sir. Secret sir waxaa leeyahay markaas is something waa wax that you do aad samays that you do not to tell others people taasoo aadan jeclayn inaad u sheegto dadka kale. The two boys labada wiil were sharing waxay wadaagayeen a secret sir ayay wadaagayeen. Shout waa qaylo. To shout inaad qaylisa si waa inaad tidhahdaa something shay inaad tidhahdaa loudly kor aad u qaaddaa sabaxan kore aad ku samaysaa. My boys mudanahayga shooted wuu qayliyay at me ana ayuu ugu qayliyay because maxaa yeelay I was late for work shaqada ayaan ka soo dahay. Smell waa urin. To smell inaad urisaa something means waxaa lala jeeda to use inaad isticmaasho your nose sanka to sense it saa u dareento markaa shaygaas aad urisay. The two friends labada saaxiibood smell it waxay markaas uriyeen the flower ubaxi ayay uriyeen. Terrible waa shido mise caqabad leh markaas. If something haddii is terrible oo shido uu leeyahay mise caqabad uu leeyahay it is very bad waa mid aad u xun. The way habka he treated ula dhaqmay his classmates ardayda ku galaaska ah was waxay terrible mid caqabad leh mise shido leh. Worse ka xun waa bad xun ayay ahayd. Worse ka xun worst ugu xunayn markaas noqonaysa. Worse ka xun waa markaas if something is worth hadduu shay ka xun yahay markaas waxaa la samaynayaa comparison ayaa la samaynayaa it is for a poorer quality than wuxuu ka markaas tayo yar yahay another thing shay kale ayuu ka tayo yar yahay. Business ganacsigu was worse wuxuu ku xun yahay this month bishan than last month bishii la soo dhaafay ayuu ka xun yahay markaas. Halkaas waxaan ugu soo gudbaynaa markaasi word listigii ereyadii nala sii cutubkeeni labaad ayaan ugu gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa markaasi pageka 16 oo leh markaasi exercise 1. Pagekani markaasi exercise 1 part A qaybta koowaad. Waxaan jecelnahay markaasi in markaasi aan wada ogaano oo kaliya markaasi ciwaanka aan wada fahanno kadibna aad ka soo shaqeysaan idinku. Waxaan leeyahay markaasi circle waxaad goobo gelisaa two words laba erey that kuwaas oo are related in each group. Group waliba ereyada isla xiriira goobo geli. Waxay ila tahay markaasi erey waxaa jirta soo noqnoqda sida aniga ila tahay exercise-kani waxaa jirta ereyo soo noqnoqda ee isku eg. Tusaale ka koowaad A iyo B iyo C iyo D ayuu leeyahay.
waxa waaye eegiis waxa waaye laboratory experiment and shout iyo spell intaas waay yacni erey kale oo soo noqday jumladda ku xigtaa hadda markii loo fiiriyo su-aasha labaad ma ku jiraa waayo waxaa la yidhi waa shout carefully create a laugh su-aashii koowaad erey aad ku aragtay su-aashan labaadna ma ku jiraa waa jawaabta sababto ah su-aasha koowaad qaybteeda c waxaa ku jiro shout ayaa ku jiro su-aashan labaad qaybteeda a waxaa ku jiro shout ayaa ku jiro marka labadaas erey ayaa isku macnaa labadaas erey ayaa nala sheega sida nala muujina marka si lamid ah markaasi su-aasha saddexaad iyo su-aasha afaraad iyo su-aasha shanaad waxaa ku jira erey lamid ah sidaasoo kale isku toosan marka saasay ila tahay su-aasha in lala jeedo qaybta b ee part b aan u nimaano right haddaba waxaad qortaa word erey that kaasoo is similar meaning la macnaa to the underlined part qaybta hoosta laga xariiqay erey la macno ah la imaw ayaa lagu yiri markaasi ereygaas erey cusub maahane ereyada aan soo baranay ayaad ka keensanaysaa markaa William ninka la leeyahay wanted wuxuu rabay to make inuu sameeyaa a new thing wax cusub erey markaasi lagu qeexay waxaan soo baranay to make a new thing inaad wax cusub samaysaa ereygaas maxaa laga wadaa waa create abuuris meeshaas hadda waxaa nala siiyey CRE ayaa nala siiyey waxaa laga rabaa inaad dhamaystirto waa create oo keliya su-aasha labaad haddaan u gudubno wuxuu yidhi markaasi I'm not having fun aniga waqti fiican ma haysto ama raaxo leh soo sidaa darteed let me go soo bax aan aadna an exciting trip safar raaxo leh aan aadna raaxo maxaa ka hadlaya oo erey ah aan soo baranay waxaa waaye ereygaasi adventure inta kale idinka ayaa ka shaqeey doona waxaan u gudbaynaa pageka 17 exercise 2 waxaa leeyahay markaas jack ku hubi calaamadda la yirahdo tigta ku hubi tig waayo calaamadaasi the one midka that suits ee ku habboon the blank naturally meesha bannaan si dabiici ahaan midka ku habbooni waxaad ku samaysaa tig ku geli su-aasha markii lagu weydiiya waxaa lagu siinayaa labada option midna a waaye midna waa b a iyo b waxaa loo sameynaya markaasi jiitintaas ayaa laga rabaa adiga inaad tig oo siisaa oo keliya waxaa leeyahay when markii the jar waa dhale hit the floor ee dhulka ku dhacday haye waana loo baneeyey meeshaas maxaan ku qori karnaa number a waxaa la yidhi it made waxay samaysay a very loud sound cod sabaxankiisu sareeyo oo kor jabaqdiisu u sareyso ayay samaysay b waxaa la yidhi it shooted on the ground dhulka ayay ku qaylisay labadaasi a iyo b labadaa jawaab kee saxan tig oo keliya ayaa siinaysaa waxaa saxan ayaan dhihi karnaa qaybta a oo ah it made a very loud sound dhala markay jabtaa waan naqaanaa waa markaasi waxay samaynaysaa cod ayay samaynaysaa waxaa la yidhi markaasi su-aasha labaad when the sun markii qoraxdu went down ay dhacdaa qoraxda markay dhacdaa waana loo baneeyey su-aashaa soo socoto a waxaa leeyahay it was scared waa laga baqaayey qoraxdaasi was scared waa laga baqaayey number b the woods alwaaxdu looked waxay u ekaayeen evil shaydaan ayay u ekaayeen qoraxda hadday dhacdaa waxaa bilaabmaya in mugdi la gala sooma maqribka hadduu dudumaa waa mugdigaas marka waa shay weliba mise geeduhu waxay u ekaanaya ayaa layiri shaydaan marka qaybtaas b ayaa sax ah sida aniga aan malayna qaybta kale idinka ayaa dhammaystiri doona insha allah saas ugu shaqaynaysa exercise-ka pageka 18 haddii aan u nimaano waxaa noogu diyaarsan sheekadii loogu talagalay inaan ku barano ereydii nala soo baray sheekadii ay ku jireen ayaa hadda halkan inoogu yaala waxaa layidhi sheekada waxaa loogu magac daray the laboratory ayaa loogu magac daray miya's father miya aabaheed wuxuu leeyahay laboratory ayuu leeyahay markaasi shaybaar ayuu leeyahay but laakiin she had no idea iyada fikrad kama haysato waxa was in it ee ku jiro qolkaasi shaybaar oo aabaheed uu leeyahay markaasi iyadu fikrad kama haysato her dad aabaheedu always mar weliba closet wuu soo xiri jiray qolkaasi
and looked wuuna xiri jiray the door albaabka. Lock iyo close laba ay kata. Close waa markii ilida la soo xiro oo kaliya, laakiin aan security loo sameeyno qofil lagu dhajin. haddii la raaciyo loog la raaciyo taasi waxaa meesha ka cadaanaysa in qolkaasi loo sameey sakatoro ama qofil lagu soo dhajiyo ayaa halkaasi ka cad. When he went in, markuu ka maqan yahay qolkaasi aabaheed waa uu soo xiraa ayaa la yiri mar waliba markuu ka maqan yahay isigu. She knew iyada waxay ogaatay that in markaasi he used it to do projects for work. iyada waxay ogaatay inuu u isticmaalo qolkan inuu ku sameeyo markaasi mashruuc uu ku shaqeeyo. He isigu never told Moses u sheegin Mia gabadhiisa Mia Moses u sheegin what these projects were. mashruucan waxa uu ahaa ee qolkan uu ku haya gabadhiisa Moses u sheegin. One night habeen Mia approached Mia waxay u dhawaatay the door albaabka ay u dhawaatay to the laboratory ee qolkii shaybaarka. She stopped way istaagtay and thought waxaynu ku fikirtay oo istirayba I wonder waxaan la yaabanahay what Chris experiment tijaabadani markaasi waalida ah he is doing now uu hadda sameynayo. waa kuma aabaheed sadalna durbadiiba she heard waxay maqashay a loud noise qayli kore ayay maqashay kor yani u qaadman. It sounded wuxuu u cod ekaa like an evil laugh qosol shaydaan ayuu u ekaa. The nose qayladu scared wuxuu cabsigeliyey her iyada ayuu cabsigeliyey. So sidaa darteed she walked waxay u socotay quickly si dhaqso ay ugu socotay back ayadoo ku noqotay to her room qolkeeda ayay ku noqotay. waxay si degdeg ah markaas ugu socdaashay qolkeedii. The next night habeenkii xigtay her friend saaxiibteed Liz gabadha la yiraahday Kim ayaa u timid to her house gurigeeda ayay timid. Mia saaxiibteed ayaa markaan timid oo guriga Mia ayay timid. When Liz arrived markay timid Liz arrived waan soo barano imaansho ayay aheeday. Mia told Mia ayaa waxay u sheegtay her about waxay u sheekaysay the night before habeen ka hor waxa dhacay u sheegtay. Oh, it was terrible. Allah wuxuu ahaa shido, she said ayay tiri markaasi. Why don't we see maxaanan u arki karayn what is in there waxa halka ku jiro qolkaas waxa ku jiro maxaan u arki karayn. Liz asked Liz ayaa weydiisay war miyay maxaan qolkaas inaan markaas tagno aan soo fiirina naga hortaagan ayay ku tiri yani. It will be fun adventure waxay tiri wuxuu noqon doonaaba waqti raaxo leh ayuu noqon doonaa. Fun waa waqti fiican, adventure-na raaxo waa leh. Mia gabadha la yiraahdo felt waxay dareentay nervous xanaaq ayay dareentay about going inay aado into the her father's laboratory qolka shaybaarka aabaheed inay aadaa. waxa ay dareentay markaasi xanaaq ay ka dareentay but laakiin she agreed way ku raacday. agreed horan soo baranay waxaa leeyahay markaas as always sidii mar waliba the door albaabkii was locked wuu xirnaa. mar waliba aabaheed markuu baxayo albaabku wuu xiri jiro sidiisa lamid ah maanta wuu xiran yahay. They waited waxay sugeen until ilaa iyo Mia's father Mia aabaheed lift uu kaga soo baxayo the laboratory oo qolkaasi shaybaarka uga soo baxay to own aada markaas eat dinner inuu soo cashay. He didn't lock muusan xirin the door albaabkii muusan xirin waa soo laabay oo kaliya close wuu soo xiray laakiinse qofil iyo sakatoor muusan ku qaban sababtoo ah kama dheero wuu cashin raba oo kaliya. Liz ayaa waxaa tiray waa gabadhii saaxiibteed aheedee let's go soo bax. The laboratory
qolkii shaybaarka was dark wuxuu ahaa mugdi. The girls gabdhahani walked down waxay u socdaaleen the stairs waxay ku socdeen markaasi the stairs jaranjaradu carefully si taxadar badan ayay ugu socdeen. Mia gabadha la yiraahdo smelled waxay urisay strange chemicals kiimika cajiib leh ayay urisay. Strange cajiib. What terrible thing her father written Allah aabaheed muxuu wax xuni u sameynay markaasi shida ah u sameynay. Suddenly durbadii they heard waxay maqleen an evil laugh qosol waxay maqleen oo markaasi shaydaan. It was wuxuu markaasi even worse uu ka darnaa oo ka xumaa than the one midkay Mia heard Mia ay maqashay. Habeen hore inta markay ordayso Mia codka ay maqashay mid ka darani ayay maqleen. Night before habeen ka hor yani Mia qaylada ay maqashay. What if a monster was going to kill them? waxaa leeyahay markaas waa maxay waa sidee if a monster haddii markaasi cirfiidku was going to kill them ou dili lahaa. Mia gabadha la yiraahdo had to do ayaa samaysay something wax ayay samaysay. She shouted waxay u qaylisay for help caawin hanala caawi ayay tiri yani way qayliso caawin ayay dalbatay. Mia father Mia aabeed ayaa run wuxuu ku soo orday into the room qolkii and turned it on wuxuuna daaray the light nalkii ayuu daaray. Oh no waa ereyable oo lagu hadlo qofka markuu dareemo markaasi wax cajiib ah. Oh no waan ka xumahay camal waa hiiseed ayuu yiri. You must have learned waxaad ogaateen my secret sirteedii ayuu ogaateen. Your monster cirfiidkaaga tried wuxuu isku dayay to kill us inuu na dilo. Mia said Mia ayaa tiri gabadhiisa ayaa sidaa ku tiri. Monster cirfiid he asked ayuu weydiiyey. Cirfiid Mia ayuu weydiiyey gabadhii. You mean Mia ula jeedaa this kani Mia cirfiid ula jeedaa. He had a pretty doll wuxuu hayaa markaani cirfiidkaani bombale qurux badan in his hand gacantiisa ayuu ka hayaa. The doll cirfiid markaas bombalahana love it wuu qoslayaa. The laugh qosolkaas uu sameynayo markaasi bombalahana did not sound uma markaasi jabaq eka mise uma eka so evil animal sida markaasi uu sameynayo shaydaanku uma cod eka. Aniga made this ani ayaa kuu sameeyey kani for you adiga ayaa kuu sameeyey waxaan u sameeyey your birthday dhalashadaada. I wanted waxaan rabay to give it inaan ku siiyo you adiga them intaas adiga inaan ku siiyo ayaan rabay. But laakiin you can have it now hadda waad qaadan kartaa. I hope waxaan rajeynayaa you like it inaad ka hesho aad jeceshahay ayaan rajeynayaa. halkaas waxaa noogu ekaaday markaasi sheekadii aan akrinaynay. waxaan u gudbaynaa page 19. page 19 wuxuu leeyahay waa reading comprehension waa fahan markaas akhrintii ku saabsan inaan fahanay iyo in kale waxaana laga weydiinaya su'aalo toos ah cashirkii ayana laga weydiinaya. waxaa leeyahay answer ka jawaab question su'aalooyinkan. su-aasha koowaad waxaa leeyahay markaasi what is this story about? su-aasha markaasi sheekadaani maxaa ay ku saabsaneed? 4 jawaabood ayaana la siinayaa. jawaabaha markaasi anaga ayaa dooranayn oo kaliya. number A waxaan leeyahay xarafka A waxaan leeyahay egaal gabadha terrible experiment. egaalis terrible experiment sheekadu waxay ku saabsaneed ayaa la yiri number A gabar tijaabadeeda shida ay tahay. number B a secret sir that 2 girls have. laba gabdhood sirtoodii ay sheekadu ku saabsaneed. sida waxay ku saabsaneed egaal gabar who gets nervous taasoo ka xanaaqday about what is in a laboratory waxa qolka marka shaybaarku ku jiro gabar ka xanaaqday ayay sheekadu ku saabsaneed.
maya qaybta d waxaa leeyahay man waxay ku saabsanay sheekadu nin who creates ee abuuray chemicals waxa chemicals. waxaan dhihi karnaa jawaab saxdu waa qaybta d. su-aasha labaad waxaa leeyahay wad maxaa scared maxaa ka cabsiiyey one markii she approached ee u dhowaatay the door albaabkii. lamber a waxaa leeyahay the room qolka ayaa is very dark aada mugdi u ahaa. lamber b she hears waxay maqashay a person qof shout qaylinayo. lamber c she smelt fire waxay urisay dab. lamber d she hear waxay maqashay a loud noise qayli koro ayay maqashay. jawaabta waxaan dhihi karnaa iyaduna waa d. ilaahay hadday idmaa markaasi su-aasha saddexaad iyo afaraadba adiga ayaa markaas laga rabaa si lamid ah inaad u dhamaystirto. su-aasha shanaad waxaa leeyahay when xilimaa did gabadha miyaa la yiraahdo Alice iyo Lisba go into the library qolka shaybaarku goormee ayay aadeen. jawaabta oo dhammaystiran adiga ayaa laga rabaa inaad isku daydo oo aad qorto ilaahay hadduu idmo. halkaasi waxaan kusoo gabagabeyneynaa cutubkeenii labaad ee buugga loogu magac daray markaasi 4000 essential English words buuggiisa koowaad. waxaan qaladnay naf iyo shaydaan ayay xaggooda ka ahaadeen. wax allaale waxaan asiibnay alla subxaana wa tacaala ayaa i garasiiyey. wixii qalad iga dhacaan aad aragtaa waxaad igu soo hagaajin kartaa markaasi emailka ah yedni@gmail.com. magac waa Cabdullaahi Ibraahim Maxamed, jooga magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan dalka Soomaaliya. subxaanaka allahumma bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu.